dadkii waaweynaa maysan samaynin, culimmadii maysan arrinkaas samaynin. Haweeyaane dhibta ay silacay rafaadka ka daaya oo jooga oo ha dhibaataynina, ha silcinina, wadda ka hara. Waxaasaad ku leedahay ugu maqli waa lagaa qaadan waaye, waa lagu ogolaan waaye, waa lagu dhegaysan waaye, markaa waa la yeeli waaye. iska aamus. alxamdulilaahi wakafaa wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacda. alxamdulilaahi wakafaa wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacda. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. إن أولا إله ينكم هدينينا الله نو أقلاذي درسيني إن جب أو بالله هدي عشرة دي وحي أينو فضضاذانا أينو دحجلين دونو yacni erayo ku aadan dhacdooyinka maanta oo ay ka dhacayaan magaalada ama Soomaaliya qaas ahaan. sidaa darteeda waxaa in badan qofkaad aragtid buu ku hadlayaa in dhib loo geystay, dhibkina uusan ahayn mid xabadi lagu dhuftay, mid toorey lagu dhuftay, mid la baangideeyey, mid la culeeyey, mid waxa weeyaane bal dharbaxshiyo feeri waxaasaysan ahayn oo ay tahay aflagaado. aflagaadada iyo garaacista maantana saanu ognahay garaacista fiican, yacni fikirkayaga. waayo ninka maanta haddii aad isku dhacdaan oo isqabataan, xamaaqoola beriti inaad ka heshisaan arrimaha shalay isku qabateen. laakiin ninkan maanta haddaad aflagaadu lahaatid, waxaa laga yaabaa sanadooyin ilaa noloshaada hadduu nool yahay inuu ku dhaho kaa ereygo maalin hiblaayo ugu dhahay erayo loo dulqaada karmaysanahe, laakiin allah dartii baa ku cafiyey, wuu ku cafiyey, wuuna ku daba taagan yahay. haddana maxaa sababaya? carabkaagii, lisaankaagii ayaa sababaya in lagu iloobi waayana isagaa sababu noqon. marka nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam carabka isagoo ka hadlaya wuxuu yidhi: kuf sharaka can innaas, war ummadda sharkaaga ka hay. ummadda sharkaaga ka hay, ka leexo, ha dhibin, ha jahwareerinin, ha ku xadgudbin, ha raaraadsanin. waxa weeyaane noqo qof adinkiisa laga nabadgalay, noqo iyo carabkiisa intaba. maanta ninka wax dilaya, qoriga dadku dhufanaya, allah wax dile. dilitaanka ama dhaawaca qofka muxuu ku imanayaa? is-afgaran waagan halkuu ka imanaya oo ka soo baxaya, carabkaas buu ka soo fulaya, ka soo dhawaaqaya. Soomaalidu waxay tiraahdaa dadka way murmaan, laysuma gacan qaado. is-afgaran waaga wada hadalaya lagu xalliyaa. laakiin arrintu maanta meesha ma taagna. is-afgaran waaga xabad baa lagu xalliyaa. maxaa lagu xalliyaa? xabad baa lagu xalliyaa. nacam. marka anaga waxaan ka digaynaa waxyaabahan aan ilaahay iyo rasuulkiisa aysan raali ka ahayn, ayaan ummad ugu digaynaa inay iyaguna ka leexdaan, ayaan uga digaynaa ummad inay iyaguna ka dhowrsadaan, ayaan uga digaynaa ummad inay iyaguna ay iska ilaaliyaan, ayaan uga digaynaa ummadanaga inay iswalaashadaan, inay kala colowaana kaga digaynaa, inay kala fogaadaanna kaga digaynaa, inay isu imaatan samey waayaanna xiriirka isku jaraanna kaga digaynaa. kaliya waxaan raalli ka noqonaynaa in isla xiriiriyo.
lees dhexgalo, lees walaashado, lees booqdo, lees qadariyo. Nacam, nacam. Marka sidaa darteeda qof muslima ma jecelo qof kale hilbihii inuu cuno oo cuno qof bani aadam hilibkiisa inaa cunto. waa xaraam weeyaane. laakiin kayfiyada loo cuno may jirtaa? aan leena way jirtaa. maxaa weeyaane? xanta. hore waxaa lagu jiray waaga yaryareen waxaan maqli jirnay xantu gabdhaha loo daayeyba ama yani maamooyinka. isku dirkana iyagaa loo deeyey. isu toorey qaadashada, la dagaalanka, dhib isu geesmidan waxaa loo deeyey duqayda oo ragga ah. marka sidaa darteeda anaga waxaan ahno dad hadda ilaahay iyo rasuulkiisaba faaliyeen oo ammaaneen baana. laakiin xaggay naga martay maanta? maan garowsane qiimaha iyo derajada diinta aynu ku leenahay. waa may maxaan ku garowsan weynay? hadda bil waxaan ku jirnaa rabiicul awal, yacni mawluud hadda saa u taqaaniin. qof weliba sanadka marka la gaaro wuu soo qaylinaya, wuu soo dhawaaqaya. muxuu leeyahay? war mawluudka bidca weeye, mawluudka xaaraam weeye, mawluudka nebiga muu samaynin, mawluudka saxaabada maysan dhigin, ixtifaalkan aimada maysan dhigin, ixtifaalkan aad samaynaysaan waxa weeyaan khulafaa uraashidiinka maysan dhigin, ixtifaalkan aad samaynaysaan boodboodkan, cayaarkan, bilaayadan, fisqigan aa haysaanba wax yacni nebigay ku sugnaatay ma ahan. sidaa weeye, eenkaa weeye, waxbay ku hadlayaan. waad hadashay, waa lagu maqlay, waa lagu dhegaystay. waxaa lagaa rabaa keliya marka inaad ka hartid bes. waa sheegtay wixii ma lagaa qaatay? may, waa lagaa diiday. hooshooda sooma wataan? ka har adiga. marka maxaa ku dabadhigayaa? maraad sheegtay, hal sanaad sheegtay, imase sana saasaad u qaylinaysaa. war maraad tidhaahday war nebiga waxaan yacni aad ugu dhowaanaysaan wax loogu dhowaado ma ahane, diinka bax weeyaane. war waxaan wuxuu ilaahay raalli ka yahay ma ahane. saxaabaduna ma aysan samaynin arrinka, a'immada ma aysan samaynin, dadkii waaweynaa ma aysan samaynin, culimmadii ma aysan arrinkaa samaynin. waxa weeyaane dhibta ay silaayo rafaadka bal ka daaya oo jooga oo ha dhibaataynina oo ha silcinina ee ummadda ka hara. waxaasaad ku leedahay. waa lagu maqli waa lagaa qaadan waay, waa lagu ogolaan waaye, waa lagu dhegaysan waaye, warkaa waa la yeeli waaye. iska aamus. man samata najaa, ninka aamusaa badbaaday. samata ay sakata, ka aamusaa badbaaday. shimbira eriga ku dhawaaqay maad garanaysid? maad garanba. haddaad garan lahayd waad aamusi lahayd. war ninkan sanad walba asaas dhahayso adiga ereygaa ku celcelinayso, isaguna dhig jilica kuu siinaynin, hooshiis iska bato oo xoolihii oo gowracayo oo nebiga jaceylkiis dadka iskugu yeedhayo oo waxyaabihii macmacaanka uu bixinayo oo uusan ka haraynin oo uusan ka joogaynin oo uusan dib kuu milacsanaynin oo uusan ku rabin. ninkaan nin muslim ah weeyaane. ninka qubuuri iyo waxa weeyaan waxyaabaha bakti ah ku tilmaamaysaa. isagu wuxuu ku heestaa inaad tahay qof muslima. fiiri, sow sharafkaaga leeyahay oo nasabkaaga yahay. eeg, nasab weeyaane. dadka suufiyadda aad ku caynaysaan waxyaabaha qaar way kaa nasabsan yihiin, way kaa waaye aragsan yihiin, way kaa diin wanaagsan yihiin, diintana way kaaga horeeyaan, wayna kaaga sareeyaan. diinta ayagaa ka qaadateenba. sidaa darteeda marka waad caynaysaan, qubuuriyaad ku tilmaamaysaan, waxa weeyaan zindiiqa ku tilmaamaysaan, waxa weeyaan mushrikiinaad ku tilmaamaysaan. waxaad ku tilmaamaynin ma lahan. hal maalin nin suufi ah oo wadaad ah intuu kuu soo fariistay kuma aflagaadaynin. waad aflagaadaynaysaa, waad caynaysaa. xadiidka nabi maxaa ku cad? sibaabu lmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufrun. waxa weeyaan caayda muslimka la caaya faasiqnima lagu mutaystaaba. sanad walba ma faasiqa noqonaysa? goorma toobakeen? faasiqnimadaas ku dhex dhiman. imise sanadadii hore noolaayeen oo qayqaylinayna dhawaaqaayeen oo maanta inaga hooseeyaan, annaga waxba magacooda qaadi mayne. imise inaga hooseeyaan? sabab leeshaad arrinkaad u samaynaysaan adinka? aqli ma lihidiin, fakir ma lihidiin, xisaabtan ma lihidiin, garasho ma lihidiin. war waa side
محاوية واحد سمين إنسان دين تموحي نقطة إلا سوعة يا ربا لا دين وحاوي أنا نين ما ندويتا مغلا إنتو قصيدة سو أغرية سو قاطي سيد اللغة بين أوقات ولي بقط معان وكو أغرية وهابية ولي بقى أقر حسن وكو أغرية أو حليها إذن كسوفيو وحاوي كقرصن كتاوذ وهابية ما أقدر أعرف dadka qaylina meelaha ku dhaqaaqa aad arkaysaan wahabi koobi weeyaan buu yiri koobi weeyaan koobi waxa uu naqaan anaga waraaqdan daabacada laga soo qaadayo midka lagu soo koobiyeysana waxa soo naqiinayba dad koobiyaaba jiraba adinka is sheegay adinka is cadeeyay adinka is fashilaya adinka is daw taagan adinka iska hareynin adinka mar walba is dhibaataynaya adinka lawlaw isugu dhiganba adinka heshiin laaba goormaad umada ka mid noqonaysaan ii sheega يا أمة محمد ورقور ما دوما دكما نقول إنسان هذيك ساسة تذكر حياة عيسانة لكن صوفي هذا صوفي ردنا ولي جي جمارك صوفي واحد شيء ولي جي ما مقال صدق درت هذا وحالي هاي إله إنه كعب سنه وروح عن مجران حرام واي قال نمو كافر نمو واي آتير هذه ولا مقلي واي ولا لو كهر انت سنة دور سدا كلها بهيسة فكرك كلها من سنة أيام أنت كأركت دويناديو أرميه سوبيادي أي وذانو رالي أو كنقضيو يعني وحوي أنا نقول رالي نقدادا كرالي نقولين كف شرك عن الناس وما دكاي أعرف كاجي قالوا عناء حما مرجع كلها حكاية ترينا يا أنا ولا الكي قاطع واحد دون دتاو أنا فكر كأنا نعبان موياني أركت ذاتي ذاتي كمان نعبان يعني جا أنا جا أديك الشخصيا كمان نعبي لكن وحنعي waxaan necbanahay oo aanan arki karin oo aanan lagu dhaadhici karin fikirkaaga xun aad dabar wareegaysa maalinba meel aad la istaagaysa fikirkaas marna raali ka noqoneen ama laakiin daatidaadu ilaahay ku sameeyo jiritaankaagi ma inkirsani walaalkayga tahay waa ku jecelahay inaan wax wada qaybsanaa rabaa inaan isu imaanaa rabaa inaan isfahanaa rabaa inaan yani waxa weeyaan hal wada aan noqonaa rabaa marka waxa weeyaan waxaan samaynaysaan قضيدا ضد سوبيا هويني مالها دعاينيسان مالين قرآن تيسو ميل سو فرسنا إذن سو جوابين هذا إذن سو جوابين يصير رد أخلاقا والأدب إذن كو سو جوابين هوياني أفلايادي إذن سو ديرينبا ورقضيدا نمنك قرصدي أغلق صاحب دادا إذن كو جرو آموسان فكر كان الله بودي سانا ميلاك غلبا عسان جويا سيدة بنام بيتشوشيا وإلهي كيا واتقوا الله يا واقع قيلنا يو meelaha ka soo dhawaaqa ittaqullah war ilaah ka yab nabiga hadaa jeceshay saad u weynayso karto u weynayso qoladan haday jeceliisa u weynaysanay ha u weynaystaan fikrada la isku heesaa mooyaane shakhsi nacayb ma jiro shakhsi nacayana ma jiraba laakiin waxa la isku heesaa waa fikir weeyaan anaga walaalo inaan noo tihiin aaminsanahayo adinku waxaana aaminsantii naga aaminsanaada laakiin waxa weeyaan ilaah ka baqa ilaah ka yaa waa idin la baqaya maalin amaantan heena idin kaga la baqayaayo إلى كعب صدق أقول قولي هذا وأستغفر الله